gudoomiye laba maalna dacu socoti maxaa kaaga baxay maxaa inaad ka hadasha aad isleedahay waa ka hadlaysaa maxaadna ka codsanaya maxkamadda maxkamadda waxaan ka codsaa aniga horeyda la isiyo aan ka codsaa ka codsay meesha habeenkii si wax ugu dhaceen iyo waxaad noo sheegaysa ma jiraan wax badan haye aniga waxaan isaaf ka ahaayay maxamed cabdiqaadir nuur mooshin saldhig waa berian ka tirsanaa muddo 4 saac oo waxaan laga waday meeshaan la dhahay saldhig waa beri waxaan aadnay Abdiasiis waa ka soo laabanay anigoo sayidka marayno waxaan noo dejiyay dhinaca howlwadaaga saldhig howlwadaagaan tagnay saldhig howlwadaagaan tagnay telemotion issue app iyo Bashiir Durqaan waxay galeen saldhig xafiiskay galeen waxay ku soo wada hadleen ma aqaan mana sheegi karo taas motion soo bax motion adoo soo baxay baawrkiisa uu ka haystay waxa uu dhahay gaarigan soo fuulo waxaan aadaynay waa beri tuugo lagu sheegay isgoyska shaqaalaha waa soo ornay isgoyska shaqaalaha imaanay isgoyska shaqaalaha hadaan imaanay nin bisoolo wato in qori ka wato oo mid wato mid arabi wato meesha qaban saldhigaan keenay tale ku xigeenkan ku wareejinay waa baxna waxaan tagnay saldhig howlwadaag gaariga meesha dhiganay tale shucaab oo joogo masaajidka biimaalow agtiis waa soo lugaynay meesha tale shucaab meesha ugu imaanay aniga awal barnaamijka loo socdo war kama haynin meesha nafteeda waxaan nooga sheegay in oo gaari qaad ah soo socdo oo la qabanayo waayahay ayaga isku sheegay aniga ma jecel laakiin ayaga isku sheegay labadooda kadib waxaan noo sheegi doonaa in oo gaari qaad la soo socdo la qabanayo gaari kale soo daba socdo telefoon wato waa dhamaatay meeshaan joognay si meesha u taagnayni gaarigeena saldhig waa beri saldhig howlwadaaga yaalay alla soo bixiyay bartiyan nooga keenay gaarigan raacnay mooshin idarawalkiisa shirka hore galeen tali shucab waxa watay qori aaka ay koofid gaari korow ka soo fuulay waxaan tagnay isgoyska jidmarayaan ciidana joogay waa ka soo kala wareegnay waxaan imaanay isgoyska jidmarayaan isgoyska howlwadaaga dhaxdooda masaajidka weyn meesha baawarta weyn taagan baawarka luuqa la geliyay baawarka markii luuqa lagu hareeyay tale shucaab laba qof waxaa loo reebay laba qofood waxaa loo reebay motion anta kale difaac la kala geliyay aniga wiil kale meel luuqa laab aanana gelin ilaahay amarkiisa meeshaasi ugu jirnay waxaa soo yeertay aniga gacanka la dirin oo wiila gacan loo dhiibiliyaan war kama hayo taas waa dhimaa ani dhiblaaw ibraahim yuusuf wiil yiraahdo waxaan noo waday meel luuq oo masaajidka laabkiis ah aan nageli oo laamigan u muuqano laamiga u muuqano laakiin difaac aan nageli waa soo baxna meeshaan difaac markii la geli kadib waxaan maqalnay habad aako tale shucaab soo ordaayo tale shucaab soo ordaayo habad aaka dhacday haddaan saan u fiiri tale shucaab qoriga saan u haysto habad aakana dhacday aan u jeedo haddii habad aaka dhacday habada bilaawatay habad hadday bilaawatay abadaa meesha waa ku wada dhaceen hadday ku wada dhaceen wax yar kadib waxaan maqalnay wiil oo tale shucaab istaafkiis ahaaye isa ordaayo waxa u imaaday tale shucaab
emotion barteenan ku jiraan kama soo bixin qayladooda maqlayna waan u jeednaa waa isku jeednaa saatan isku jeednaa oo kale waa markaan waxaan maqlaynaa gudoomiye degmada hodanaan nagu mishimaysin miyaa gudoomiye degmadu ay qofka inta lagu dilma gudoomiye degmada hodanaan nagu mishimaysin miyaa soo dhahay dhaawac aan qaadno aan qaadno ilaahay amarkiisa adiga meeshii difaacan ka soo baxay ayaga hagadoon soo aadi mooshin iyo waxay wada hadleen taliye Shu'aab awre Bashiir gacanka kuwa ama telefoon kuwa waxa uu qaatay Shu'aab mooshin ay Bashiir Durqaana waxaa taagan isgoosku helwadaaga soo wid in la dhaho way soo baxeen isigii staafkiis 3 askari iyo isigii way soo baxeen isgoosku helwadaaga may soo gaarin ma aqaan meel gaarin ma aqaan waa soo laabteen daqiiqadaal kadib isiga oo la socdo 2 askari isiga isla socdaan ana soo laabteen meeshii ay maadeen miidkiya meeshii laga qaaday dhaawac la qaaday miidkiya meeshii laga qaaday kadib saldhigga wadaana keenay waxay howlgalku ku jira inta ciidanka howlgalku ku jirtay hal keeno la soo feeliyo anaka diyaaranayn meeshan diyaar ku ahaynay waa feelnay qoryaha anta halkaan dhiga ogaada qoryaha iska tiirini meeshaan dhignay haddaan dhignay meeshii qorihii qolana la geliyay maqyaalana laga qoray kadib waxaa noo imaaday Farhaan Qaroole baawurti Farhaan Qaroole la soo saaray waxaana geeyay CID asaasna oo keenay gudoomiye intaasaan uga caday adiga qori ma weeto ma hubaysneed nooca qoriga weeto aniga qoriga BKM aan wati organ BKM aan wati kaanaan wati xabada marid wax hal baaloota igama dhicin ilaahay ay dilay waa soomana ilaa dartiisan walla 385 baaloota ku jirti waan ku gaay aniga ma taqaana qoriga ma ka taqaana qoriyan waa kaan 385 baaloota ku jirti marka aniga CID geeyay maxaa codsanay waxaan codsanay in aniga horeyda ilaysiyo aan shaqadii dawladda inuu hay'adin dib u laabto iyo fadhis iska gacanta ku hay maxaa codsanay Faarax maxkamadda ma 2 maalin dacwadada socoto dhageysanaysay maxaa kaaga baxay maxaana codsanaysaa mudane gudoomiye waxa codsanayaa maxkamadda sharafta leh in xornimadii soo celiso in ardaad lagu celiyo codsanay ayay ka tirsanad halkee ka tirsanad adiga saldhigga wadaag maxaa qoray weyd ma ka taqaana qorigaaga qori ka wataa ma ka taqaan meeshan waa ka qaan qoriga haddaan ka baaro ka baarto indhaha ma ka taqaan waa qaan bacaad ku xiran laakiin waa qaan habeenkii maxabad ma rid adiga maya xabad ma ridin maxaa codsanaysaa maxkamadda maxaa ka codsanaysaa marka ugu dambeyn maxkamadda ugu dambeys waxaan ka codsanaya inaan xornimadayda helo iyo fadhiis kulmiye kaale maxaa codsee maxaana kaaga baxay maalmihii dacwada socotay gudoomiye waxaan codsanayaa inaan xorriyaddayda la siiyo maadaama meeshaan saaxiibkay oo meel igula sugnaa marka falkaan dhacay oo la joogay oo wiri 4 askari meel igula sugnayd anina 4 askari aan ka mid ahay meeshaasna aan xabad ka ridin dambigaasna aan wax falo ku lahayn qorigaaga ma ka taqaanaa kuwan qorigii waa ka aqaanaa muu jeedaa qoriga saddexaad uu leeyahay oo malaynaa qoriga saddexaad waa ma ku qorantaa qori adiga
qorayaad ku qorantaa ma jiro qoray aniga mar dhawaa Djibouti ka imaaday taliyaha xoojinaa ula joogay ma ku qorantaa qoraygan ku dhashay yaa qorayaad ku qorantaa ma jiro ku diiwaan gashantaa maya iska dhig waa maasanta ii fariis Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier